magaalooyinka waddanka Kenya iyo qaybo badan oo caalamka ah ayaa caawa waxaa si rasmi ah looga arkay dayax-madoobaad guud oo loo yaqaano blood moon ama dayaxa dhiiga ama dayaxa casaanka. muuqaalkan ayaa si rasmi ah u bilowday saacadihii la soo dhaafay gaar ahaan 7:12 daqiiqo hase ahaatee wuxuu si rasmi ah u bilowday 8:30 fiidnimo ee caawa. hay-adda hawada ee Mareykanka ee loo soo gaabsho NASA ayaa horey u sharaxday in dayax-madoobaadkan uu dhacayo marka dhulka uu si toos ah u dhaxgalo dayaxa iyo qorraxda, taasoo ka dhigaysa in dayaxa si toos ah uusan u helin iftiinkii qorraxda. iftiinka keliya ee gaaraya dusha sare ee dayaxa waa kan ka imaanaya cirbiyeenka dhulka, kaas oo u ogolaanayo in qayb ka mid ah iftiinkii casaanka ahaa uu ku soo milmo dusha sare ee dayaxa, taasoo keenta in dayaxa uu u muuqdo mid guduudan oo sida dhiigga ah xilliyada dayax-madoobaadka ay dhacaan. faahfaahin kooban aan ka bixinno waa maxay dayax-madoobaad. sida qaar ka mid ah saynisyahanada iyo culummada muslimiinta ay aaminsan yihiin, dayax-madoobaad waa marka dayaxa uu madoobaado sababtoo ah iftiinkii dayaxa uu ka heli lahaa qorraxda ayaa waxaa hor istaagaya dhulka. inta aan faahfaahin badan sii gelin aan dib waxyar u laabanno. waa sidee marka uusan jirin dayax-madoobaad? marka arrintu ay caadi tahay, dayaxa si uu habeenkii u iftiimo wuxuu marka hore iftiinka ka soo helaa qorraxda. taasi waxaan filayaa inaan isla fahnay. haddaba marka uu dayax-madoobaadka dhacayo, xaalka sidaas waa uu ka beddelan yahay, waayo dhulka ayaa waxa uu soo dhexgalaa qorraxda iyo dayaxa dhexdooda. iftiinkii qorraxda ee gaari lahaa dayaxa meeshaas ayuu ka baxayaa sababtoo ah dhulka ayaa dhexdooda galay. markaas dayaxa wuxuu galaa hooska ama harka dhulka. sidaasi daraaddeed dayaxu waa uu madoobaadaa ama mararka qaar wuxuu noqdaa casaan, waana taas waxa loo yaqaano dayax-madoobaad. haddii arrintan ay sax tahay, su-aal ayay dad badan isweydiinayaan oo adigani dhegaysanaya laga yaabo inaad isweydiinayso, taasoo ah dhulka hoos ayuu ku yaallaa, qorraxda iyo dayaxana cirka sare ayay ku yaallaan. marka sidee ayuu dhulka u dhexgeli karaa qorraxda iyo dayaxa dhexdooda? waa su-aal fiican aad isweydiinayso, laakiin marka hore aan meesha ka saarno fahamka ah in dhulka uu hoos ku yaallo. taasi beddelkeeda cilmiga falaga iyo culimo badan oo muslimiina waxay isku afgarteen in dhulka, qorraxda iyo dayaxa dhammaantooda ay yihiin sida kubad ama banooni oo kale oo waaweyn oo ku wareegayo hawada sare, oo aysan jirin mid kor jira iyo mid hoos jira toona. sida saxda ahna waa in qorraxda ay tahay xarunta dhexe. dhulku wuxuu ku soo wareegayaa qorraxda hal wareeg sanadkiiba, dayaxuna wuxuu ku wareegaa dhulka hal wareeg bishiiba, waana waxa ay ku samaysanto maalmaha bisha, sanadka iyo xilliyada kale ee jiilaalka, guga iyo wixii la mid ah. marka dhulka uu si sax ah u dhex marayo qorraxda iyo dayaxa, dhulka wuxuu sameeyaa har aad u weyn oo ku dhacayo dayaxa. markaas ayuu dayaxa madoobaadaa ama dhinac uu ka madoobaadaa. aan haddana sawir maskaxeed ka bixinno si fahamkeena uu u sii xoogaysto. ka fakar sida 3 shay oo waaweyn oo kala ah qorrax, dhul iyo dayax oo kala socda. haddii qorraxda iyo dayaxa ay isku toosaan oo dhulka uu dhexdooda galo, dhulka wuxuu daboolaa iftiinka qorraxda ee ku dhici lahaa dayaxa. markaas dayax mugdi ayuu galaa, taasina waa dayax-madoobaad. sidaasi waxaa aaminsan qaar ka mid ah ama saynisyahanada falaga iyo sidoo kale qaar ka mid ah muslimiinta caalamka.